السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada falanqayntii jimcaha waxaan idin soo jeedin doonaa anigoo Saciid Maxamed waxaanu maanta ku soo qaadan doonaa isbarbardhig awoodda ciidan ee wadamada Hindiya iyo Pakistan ku soo dhawaada daawadayaal aynu ku bilownay wadamada Hindiya iyo Pakistan waa laba dal oo dhaca koonfurta qaaradda Aasiya marka hore dalka Pakistan tirada dadka ku nool waa 197 milyan oo qof halka dalka Hindiyana ay ku nool yihiin 1 bilyan iyo badh ku dhawaad magaalada caasimadda oo wadanka Pakistan waxa lagu magacaabaa magaalada Islamabad waana magaalada ugu weyn dalka Pakistan halka caasimadda Hindiyana lagu magacaabo magaalada New Delhi oo ah magaalada ugu weyn dalka Hindiya dhinaca ciidamada heeganka ee wadanka Pakistan waa 653,000 oo askari halka ciidamada kaydka ee wadanka Pakistan ay yihiin 513,000 oo askari halka ciidamada dalka Hindiya heeganka ciidamada dalka Hindiyana waxay gaadhayaan 2 milyan iyo 144,000 oo askari halka ciidamada kaydka wadanka Hindiya ay yihiin 1 milyan 155,000 oo askari dhaqaalaha dalka Pakistan waa 1 trilyan oo dollar halka dhaqaalaha wadanka Hindiyana uu yahay 9 trilyan in ka badan dhaqaalaha ay Pakistan ku bixiso dhinaca ciidamada waxa ay gaadhayaan 6 bilyan oo dollar waxaana kaga badan dalka Hindiya dhaqaalaha ay Hindiya ku bixiso ciidamadeeda waa 5 bilyan oo dollar bal aynu eegno dhinaca taangiyada dagaalka wadanka Pakistan wuxuu haystaa ilaa 3,000 oo taangiyada dagaalka halka uu dalka Hindiya uu haysto 4,500 oo taangiyada dagaalka bal aynu eegno dhinaca cirka iyo diyaaradaha dagaalka ee dalka Pakistan waa 1,143 diyaaradood oo nooca dagaalka halka dalka Hindiyana ay diyaaradaha dagaalku ay yihiin 2,216 diyaaradood oo kuwa dagaalka balanu eegno ciidamada badda iyo maraakiibta dagaalka ee dalka Hindiya waa 214 markab halka Pakistan ciidamada maraakiibteedu ay yihiin 231 markab dhinaca nukliyeerkana 120 madax ilaa 130 madax ay haysataa oo nukliyeer dalka Pakistan halka Hindiyana haysato 110 ilaa 130 madax oo nukliyeer saad uga mid noqoto daawadayaasha channelkan subscribe saar videogana like saar maalin wanaagsan waa inoo jimcaha dambe ismaqal dambe oo xiiso leh